بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. casharkan waxaan ku baranaynaa sida user account jiray magaca lagu bedelo, mid cusub loo abuuro, loo delete gareeyo. intaas ayaan ku baranaynaa casharkan. waa cashar aad xamaasad u leh. aan ku bilaabnaa. markaan koobaad waxaan imaanaynaa user meesha ay ku qoran tahay control panel. soo furaynaa user account. kadib halkan ayaa kuu soo baxday. marka ugu horeysa waxaan bedelayaa magaca ayaa bedelayaa isma ku qoran. halkan ayaa ku qorayaa marka magaca inuu bedelo aan rabo. waxaan ku bedelayaa Ismail. kadib waxaan leeyahay janji. Ismail ayaa soo baxay. labo account cusub ayaa samaysanaya. qaybtan waxaa ku dhifanayaa manage another account. hoos waxaa ku dhifanayaa add new user in PC settings. inta waxaa kuu soo baxday add family member. waxaa leeyahay marka halkan waxaa ku dhifanayaa ay ku qoran tahay add someone else to this PC. halkan waxaa ku qorayaa magaca inuu yeesho oo rabo aan rabo. waxaan jeclahay aan ku qorayaa hooyo. password uu sameynayo sanadka iyo ku celinaya. inta waxaa lagu leeyahay security question. halka uu hore dooro. inta waxaa iska qortaa good. halka labaad security question 2. waxaan leedahay Somali. halkan waxaa ku qoraydaa nickname. waxaa leedahay hello. halkaas markaa mareed waxaa leedahay next. hooyo banaanka u bax. banaanka u sii bax. refresh dhe marka. waxaa kusoo laabanay control panel user account another account. waa kana intaa kusoo muuqdo hooyo. marka hooyadan waxaa rabaa in aan tirtiro meesha aan ka saaro. waxaan leeyahay kelidan ku leeyahay intuu ku yaalo waxaa lagu yiri change account name, change the password, change the account type, delete account, manage another account. accountkaas ma ismaamo. aniga hadda intaas oo dhan doonaya waxaan doonayaa inaan tirtiro. waxaa leeyahay delete. ku leeyahay markaa you wanted to keep his files. ma doonaysaa inaad faylka hore aad tirtirto. before you delete hooyo account, Windows can automatically save the contents of his desktop and documents, favorite music, picture and videos folders to new folder called Hoyo on your desktop. However, Windows can't
save hooyos mail message on other settings waxaasoo dhan dooni maayo aniga muhiimadeedu waa inaan tirtiro waxaan delete adiga hadday xogii wax kugu jiraan kala bax meel kala dhigo ay sure ma hubtaa you want inaad doonayso to delete inaad tirtito hooyos account waxaan leedahay haa waa la saaray hooyo meesha way ka baxday banaanka u bax dib u soo laba soo raadi marka ina hooyo ay ku jirto inta soo fur marka user account another account maxaa ku yaalo Ismail local account waa administrator password protected malaha halkaas account ayaa meesha ku jira account kale ma jiro cashirka intaas ay ku qabeynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.